runtii golaha waxa la keenay waxay ahayd heshiis dhammaystiran oo package wada socda baa la keenay oo ay ku soo heshiiyeen saddexda xisbi qaran iyo komishinkii xukuumadda ku soo heshiisan baa la keenay doorashada madaxtooyada oo kaliya lagama filahayn inay muddo kordhis ku sameeyaan laakiin waxa laga filay heshiiska oo dhan inay ansixiyaan maca ay ku jirto doorashada wakiilada iyo golaha deegaanka oo sanadka dambe 2018ka lagu soo heshiiyey inay qabsoonto haddii la yiraahdo runtii maanta marka go'aankooda waxa ka soo baxay laba qodob ka soo baxay kii madaxweynaha intii aynu filinay wax badan kumay kordhin waana soo dhaweynaa ka xisbi cudahan go'aanka golaha muxuu doorashada madaxweynaha madax ku-xigeenka ay ku saleeyeen waana soo dhaweynaa laakiin runtii waxaanu ka xunnahay in labadii gole ee waddanka intaas sano fadhiyay ee golihii wakiilada 2005 la soo doortay ee 12 sanadood fadhiya ee muxuu ahaayay sharci darrada ku fadhiya inay 2 sano oo kale u sii kordhiyaan taama soo dhaweyno waanu ka xunnahay dariiq sharciye kalena waan u mari doonaa haddii la yiraahdo annagoo la tashan doonaa axsaabta kale ee aanu saaxadda siyaasiga ku wajilno golaha guurtidina iyaguna sanadba ka sii dambeynaya marka taas waxaynu tusaa inay iyagu jeclaystaan inay kuraasana sii fadhiistaan golayaasha kalena runtii ay doorashadooda soo dedejiyaan marka package wada socdo buu heshiisku ahaa package-ku wada socdo bay kala reebeen marka iyagu waxaan muxuu ahaayay taladama ayaan isku noqon doonaa taa ay guurtida iyo muxuu ahaayay ay ku sameeyeen muddo kordhiskana sabab allaale sabab ay ku saleeyeen iyo wax allaale wax u cuskadeen iyo wax allaale wax ku qiimay midkoona ma jirtay runtii waanu muxuu ahaayay waanu cambaaranaynaa muddo kordhiska labada gol u sameeyeen